أقرم عفيف وعاود ندى برين وكسو جدا صوماليا عياريان كقدر أسورة قليا لبدا جارين يكوكو ليسا كوبكا آسيا oo horay sama finalka ugu soo saaray caawina 3 gool waan sixiyay ayaa Soomaaliya baray dunida inuu ka soo jeedo ciyaaryahankan ayaa la yimaaday calaamad yar dabaaldega goolkiisa oo uu ku qoran yahay ereygaas wariyaha ayaa dulba qaatay oo dhahay waxa uu la dabaaldegayaa xaaskiisa oo ka bilaabata magacaas laakiin Soomaali badan ayaa durba sheegtay in ciyaaryahankan uu ka soo jeedo Soomaaliya ayna tahay xarafka uu ku dabaaldegayo S oo ah Soomaaliya caawa si kasto oo ay timada 2019 waxa uu noqday xidigii ugu fiicnaa Aasiya isagoo suun ka fiicnaaday 2024 mar kale ayaa uu noqonayaa xidiga ugu fiican Aasiya maadaama tartankan uu suura galiyay qadar isagoo ansixiyay goolashii ugu badnaa haddaba aragtidaada xarafka S ee ciyaaryahankan uu ku dabaaldegay ma waxa uu la jeeday Soomaaliya mise waxa uu la jeeday xaaskiisa sida uu leeyahay wariyaha haddaba keebaad qabta aragti ahaan adigu